محل عون الله لحي ولكن مصعب بن عمير oo iga khayr badan baa dhintay buu yiri maalintuu dhimanayna Mus'ab bin Umayr uu dhintayna mara kafar aan uga dhignaa weynay wuu mara kafar aan uga dhigno mara kaliya izaar baanu helay izaar gunti xagga sare markaan ka saarana lugaha mijaha ayaa noqonaya banaan xagga mijaha markaan ka saarnana madaxa ayaa maaragtaan muuqanayay xagii madaxa intoon marada ka saarnay ayaan mijihiisina geed intoo soo qaadna ku dubnay ومصعب بن عمير ومن مصعب وأيوه ومقري وياه مدينة المنورة نبي محمد وأنا سوكارن ويركي سببته النقضي إني أقل والبا أي دعوة دين الإسلام قوي بيدك مدينة المنورة ونبي وأنا سوكارن ومسين عن اللهين ومركز دعوتنا على قد السن أي مصعب بن عمير انتو بيردح فريستي كل بقفصد اللوغو كينا يي كل بقفصد وزيارنا يي ayaa diintii islaamku aqalladii Madiina oo dhan wada gaadhay markaas qoys kasta reer Madiina ayay bilaabeen quraanka in lagu aqriyo lagu dhax barto nabi maxamed oo Madiina soo gaarin aqal kasta reer Madiina ku yaala quraanka lagu dhax aqrisanaya muqri fatan quraish intuu san islaami ka horna waxa la oran jiray wiilka quraysheed wiilka quraysh yani waxa laga soo qaaday quraysh nin kale oo dhalinyaro inaysan lahayn muscab mooyaan yani quruxdiisa iyo xaragad badnidiisa markaas gabdhaha quraysheed oran jireen muscab alla soo xasaabo la sheekaystay waa ayaam al-jaahili zaman jaahiligi weeyaan dharka uu gashado shaam baa looga keenayay kabaha uu xidhana shaam baa hooyadii uga keeni jirtay oo islaam raaxadii buu ka tagay dharkii iyo nolosha caynkaayeen tarafkii iyo tanucumkii ku jiray ilaahay rasuulkiisu ka doortay markaas hooyadii ka daba timiday tiri Mus'abow baadna cuni maayo biyana cabi maayo hadna istaagi maayo diinta Muhammad oo ka soo noqotid mooyaan adaadaha ku dhintay tiri hooyo macaanay buu ku yiri baadkaagana iska cun biyahaagana iska cab harkaagana ku noqo oo harkaaga iskaga noqo boqol nafood haddaad yeelato oo midba mar halka ay kaaga baxdo diintan islaamku tuu ka soo noqonay maahin hooyo ma soo noqonay khalaas مدينة المنورة نبيgu markaa u diray مدينة المنورة نبيgu u diray dharka ku dul go'ay maalin maalmaha kamida markii nabigu Madiina soo gaaray ee magaalada Madiina muhaajiriintii ansaartii ay wada yimaadeen ayaa Mus'ab bin Umayr oo cabaad maaragtana go'go'da marag go'an oo karkarma leh xidhan oo waliba intuu maxaadiraada balka surarka maxaadiraada lagu badankiina uu ka go'ay wadaxna uga dhigay maaragtana iyo qori uga dhigay badan ayuu soo agmaray baa leeyahay markaa nabiga markaa uu nabigu lilma sii daayay sallallahu alayhi wasallam Ali ibn Abi Talib baa ku yiri ya rasuulullah maxaa ku helo la ooyaysaa ii sheeg wuxuu yiri ala tara buu yiri Ali Mus'ab yana darkeen buu keenay nolosha ku nool yahay دقة يعني تعبك كبوق ما دركي فاقدة باهدة درلا أنت نفقة درلا كبوقت وعاد حصوصتي بالنبي بيقولي انتو الإسلام كهر نعمتي وكنا لابان حصوصتي هي نولا شهادة وكنا ليهي نولا شهادة مصعب بن عمر وكنا ليهينا إلهي رسول قساك قرر لي برسول يا معشر الشباب للي يروا ayaad ku dayanaysaa maanta adigu Mus'ab bin Umayr raaxadiisi tanacumkii uu ku jiray xaragadii uu ku noolaa hooyo barwaaqaysan oo hanti oo xoolo oo ilaahay hanti uu siiyay ayaa haysato dhashay bay ahayd noloshii caynka ay intuu ka yimiday ayuu wuxuu doortay nolosha inuu ku noolaado dhar la'aan hooy la'aan cunto la'aan markaas waxa ka muuqata jirkiisa mujaahada ka muuqata مجاهدو يا كبوقت يا عدم التعيش مرقابو نبي يقول لي لولا شاء وكجر هذا موجودا ها إلهي رسول قساك قرر لي أبو كيف هنا كان ما تدلير لنا يا كضينا يا إير واختير تدل واختير لحسنه
أيوه سعد بن معاذ أيوه نبي قاعد جوجي مقام كوكارنا أيقو فرسو غيري دي سي دمشدي سي عرش الرحمن كهو دقاقي بالله والإحسان أوكلية أبا هريرة مدير أنت كدو أيوه سبر النبي قاعد جوجي لكن ومدين تلك وحي وهي ودنبو استعداد ودنبو ديبي وعو كرب إلهي علم إلى قيامة الله منافسنا عن أبي هريرة الليل دائمة هذه الأمة وأئمة أمتنا هي مدير بيت يد كنا لا علم البضع بأمته وقتها علم البضع وإلى يومنا هذا كتبت سنفين قارقود الله قريب اسكن نولو اسكن بكو اسكن دمو ماها مقصود كسداس سدا حولها ونولوش حيوان كنولوشاس inaad cuntaa ood cabtaa ood seexataa oo meelaha intood fadhiisato aad ka qaylqaylidaa ood gabowdaa ood bukootaa ood iska dhimataa bilaa hadaf waa nolosha xayawaanka muslimka hadafkiisu maaha sidaas muslimku waa inuu noqdaa qof adduunkan wax ku soo biirinaya wax ku biiri lana adduunyada adigu ka teg khayr ku beer khayr ku soo biiri adduunyada hidaayada sabab u noqo islaax adduunyada ku soo ziyaadi خير أمته كامن عفصته إلى قيامها الله هذا الحي أمتك وقصة وعيسو كالشقاء الدال على الخير كفاعله نكتتك خير كتصب ونبي يري واسد إن خير كيسما يبو رسول طريقه ما حين طريقه أفريا معناته طريق المجاهدة ماها دعوة ماها وحي قصعته سيدا إنك وهذا هاي ستان اجتماع الله قبتي ضد باكسو قريب لي بيانا لدغيستي اقلada lagu kala noqday may amalkan waa mujaahado waxaan u maleeynaa oo yaqiinsanahay kulligeen markaska ay noo dhisana inta leeg iyo majmaca maanta halka masjidka hareerihiisa fadhiya dhageysanaya waxa ku raaxaysanayna waa maxay waa tadxiir rag hore ay galeen tadxiyaat rag inaga horeeyay ay bixiyeen ayayna soo jiido halka ay nakeena ugu marka tadxiyaat isku tagay ay ummadda ku dhismaysaa buu Sheekh Abdul Wahhab najmac at-tadhiyat wa najmac salahiyat al-umma nabigu alayhi salatu wa salam sifaadkii saxaabada uu kulmiyay tadxiyaadkoodii kala duwanana uu kulmiyay raganimadii Khalid ibn al-Walid iyo daahiyadii Amr ibn Aas iyo rahmadii Abu Bakr as-Siddiq iyo shiddadii Abu Bakr iyo shiddadii Usman هي حشوتك عثمان بن عفان هي سخاوتي عبد الرحمن بن عوف هي زهدك أبو ذر هي حفظك أبا هريرة هي علمك معاذ بن جبل هي فقهك ابن عباس هي الرجل مدي قعقاع أتعرفون من هو قعقاع صلاحيات كابو نبي الجمعيي لأن مركب النبي أمد السيد إنكنا ما أنت الرجل لماذا وين نقول بحسنتهاي قاركين وحل لقيابا أبو بكر إنه يشبهان قار عمر إنه يشبهان قار خالد إنه يشبهان قار عثمان إنه يشبهان قار عبد الرحمن إنه يشبهان قار أبا هريرة إنه يشبهان لكن صفات قاسي وين أصلتها يا مالك صفات كاس باهسن أي إلى العلماء جهدي كان دعوة واحد وقد لنا هاي صلاحيات كأمة إلهي وكوكلا أبوري إما لك لدوني والبلف ديو أي كل من إنا لأن مركب إلهي هداية فيصلين هداية أدو إلهي فيصلين ما تقعنا واحد عاية ذاتك باطل أقبل ما يان حق يسكسوا الدوران ينهدثوني شيخ عبد الله بحيري الله نحرسته madaxdu hadday isku dayaan shacabka inay hor joogsadaan ma hor joogsan karayaan waayo laana ilaahay hidaayadii buu faysaleeyey غلام yarkii yaraayo غلامka
boqorkii markuu ku yidhi haddaad rabto inaad idishid aniga halkaa igu xidh deedna sahamkiiyo kinaanadayda igu dil markaad igu ganaysa keliya ii dheh bismillaahi rabbialghulaam ku gan waa kaa dhimanaya markaa sidii uu boqorku u yeelay uu dhintay kii yaraa hidaayaddii baa ilaahay fiisaleeyey dadkii maxay dhaheen waar dadkii maxay yidhahdeen aamannaa birabbi alghulaam waayo ilaahay hidaayaddii isagaa haya markaas laakiin tadxiyaadkii maadaama maanta ay kala bahsan tahay oo nin walba raganimadiisii iyo salaaxiyaddiisii meel gaara uu la fadhiyo ummadda markaa cadowgaa ka faa'iidaysanaya markaa natuub ilaahay aan u soo noqonno oo toobadkeenno oo dadaalkan mar labaad tallaabadana horay han u qaadno waxaa adduunyada ka dhacdhacayaad maqlaysaan ee la sheegsheegayo ilaahay eegi maaya waxaa dadka ducaadda niyaddoodaa ilaahay eegaa bay culimmadu yidhahdeen ninka daaciga jamaacadda isku fikirka isku hadafka hadday qalbigooga fikirkooga tadxiyadooda hadday mideeyaan waxay iyaku doonaan maayna wax kale adduunka ka socon maayo waa sunnada ilaahay dee insha allah dhahada inaan cimrigeenna caqligeenna xooggeenna raganimadeenna inaan dadaalkaa ku midayna ayaa u diyaara sidaa aad u dhegaysanayseen eed u fadhideen ha kicina ha hallina haddaad ducaa doonaysaa